kulankan casho sharafta ah oo lagu soo dhaweynayay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda Cabdilaahi Bidhaan Warsame ayaa habeenkii xalay ka qabsoomtay mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada Garowe waxaana kulankan ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Nogale ee Puntland Umar Cabdilaahi Faraweyne ka gobolka Sool Biladhiga Cabdi Geele xildhibaano siyaasiyiin odayaal waxgarad haween iyo dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo dhamaantood si weyn u taageeray wasiirka intuu kulankan socday marasharaftii kala duwaneed hadalka u kala dambeysay waxay si weyn u soo dhaweeyeen wasiirka iyagoona ku amaanay karti awoodeed inuu leeyahay shaqadan loo igmaday sidoo kale waxay fariimo dhambaala mahadcelin hawada u mariyeen xukuumadda nabad iyo nolol u hogaamiyaan madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Khayre dalika maqsuudka meesha la isugu yimi waxa weeyaan waa wasiirkii inoo tahniyadeeyo Cabdilaahi Bidhaan Warsame horta waxaan leenahay haniyan la kamaan leenahay wasiirnimadiisa markii horena dadkii waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa horta guusha wasiirnimada uu helay in ilaahay ku ayido muhiimadeeda ama ujeedka loo qabto waxa weeyaan waa tahniidinta iyo taageeridda wasiirka Cabdilaahi Bidhaan Warsame waa soo dhaweynaa wasiirka وانا تاجرسن لهاي أنا كنت لي أفكار قبل الصور ينما أنا أفكار بدلان وسولو وين الله وزير كعصب وزارة الكلوميسية خيرات كبدا الدولة الفدرال كالصومالية يعني معاه هل كان وقلت هذين إنه حفلة ديسا مستر عبد الله بidhaan Warsame حدانو النهاي ذاتك الديجان كرير بوتلان waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan gudoomiyaasha gobolada Sool iyo Nugaaleed ka xildhibaanadii shaqaalaha dawladda marti sharaftan bada saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bada salaan waxaan aaminsanahay xafladani qorshay lahayd qorshahaasina wuxuu ahaa soo dhaweynta wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliyeed marka ugu horeysa waxaan u direynaa dhammaan dadka shacabka halka fadhiya iyo dawladda waxaan baryaan leenahay wasiirka runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan ognahay wasiirku xilligii xildhibaanada uu ahaa ee uu matalayay ummadda reer Puntland ama bulshada reer Puntland inuu markiiba taabtay waxyaalo fara badan oo taaban kara runtii dhammaan Puntland shacabkeedu oo hambalyeynayaan wasiirka mudane Cabdilaahi Bidhaan waxaanu direynaa waa tahniyad aan halka taleed uga direyno in ilaahay xilkiisa ku asturo oo si maamuus leeyahay sharaf Allah ugu asturo ayaan ugu ducaynaynaa aan hambalyo ugu direynaa awalna wuxuu ahaa xildhibaan Soomaaliyeed maantana waa wasiir Soomaaliyeed waxaana leenahay kii cadaalad ugu shaqeeya Allah ka dhigo maadaama uu ka soo jeedo deegaankan Puntland isagoo ka soo jeeda haddana xilkiisu wuxuu quseeyaa Soomaali oo dhan qabanqaabiyey usoo xilkaas ka saaray xafladan lagu maamuusayo loogu tahniideynayo Cabdilaahi Maxamed Warsame ama Bidhaan hambaliyo waa hambaliyana waxaan kala hambaliyana madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda federaalka ayana waa hambaliyana ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa hambaliyana waxaan kala hambaliyana waxaan ugu hambaliyana dawladda horta ninkan qof kasta si nooca uu yahay aabihii iyo waa ku dhalaa hooyadii baa ku dhalaa ninkan waxaa lagu qaatay markuu doorashada galay waa wax lagu ogaa baa lagu qaatay isaga waan bogaadinayaa wasiirkan xafladiisa isugu nimi Bidhaan Mr. Bidhaan wasiirka kheyraadka badda iyo kalluumaysiga كل حفلة ولجت كذا نسوني أما إنه نمحلك محوية إنه تهني ذينه أما إنه هم برينه وزيرك عصب عبد الله بidhaan وزيرك حنان هم بريو حل بالغو صاري حل كوحة لغو صار مدة الصومالية ودن
xilkaa lagu saaray ilaahay ha kugu sharfo ilaahayna xilkiisa ha kugu asturo. markuu kulankani soo dhamaaday ayaa TV-ga SBS fursad u siiyay dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulanka casho sharafta iyaguna halkaasi dhambaala hambaliyo u diray wasiirka. aan halkan hambaliyo iyo tahniyad uga dirayaa wasiirka khayraadka iyo badda mudane Cabdilaahi Bidhaan Warsame. الرحمن الرحيم waxaan hambalyeynaya wasiirka khayraadka iyo kalluumaysiga Cabdilaahi Bidhaan hambaliyo Allah kula garab galo. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirka cusub kalluumaysiga iyo khayraadka badaha Cabdilaahi Bidhaan Warsame. joognaa xafladda wasiirka khayraadka kalluumaysiga khayraadka iyo badda hambaliyo ku leenahay Ilaahay kugu qalab. anoo ku hadlaya afka dhalinyarada Puntland waxaan halkan uga hambaliyeynayaa wasiirka cusub ee kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdilaahi Bidhaan Warsame xildhibaanka waxaan leeyahay Ilaahay ha kugu asturo xilkaad qabatay. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan hambaliyeynayaa wasiirka khayraadka iyo badda ku dhaweynayaa wasiirka khayraadka badda iyo kalluumaysiga Cabdilaahi Bidhaan Warsame waxaan uga hambaliyeynayaa xilka loo dhiibay waan bogaadinayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ra'iisul wasaare Khayre inuu soo salagtay gareeyo nin aqoon leh oo ka fargarayn kara baahida Soomaaliya ay maanta u baahan tahay. Cabdilaahi Warsame Bidhaan وجماعة وسيرة Soomaaliya waddan wasiira waa salaamaynaa waa soo dhaweynaa waa taageeraynaa. raxiim magacaygu Cali Ciise Xasan waxaan halkan uga hambaliyeynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdilaahi Bidhaan Warsame waa soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyarada ku nool dhalinyarada reer Puntland runtii waa nin wax qaban kara ilaahayna waxaan uga baryanaa shaqada loo igmaday in Ilaahay u fududeeyo runtii waa nin howlkara shaqadaasna ka soo bixi kara. kulankan ayaan ahayn kii ugu horeeyay ee loo qabtay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee khayraadka badda Cabdilaahi Bidhaan Warsame iyagoona ay soo tarisay taageerada kala duwan ee loo hayo wasiirka wasaaradda khayraadka Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidhaanshe telefishinka caalamiga SBS Garowe.